anshaxa 18 waa makhluuq walba waan u naxariisanaa. Bar ilmahaaga oo waqti si aad u barto naxariistu waxay tahay. Tusaale ahaan, waxaad dhihi kartaa raxmaddu waxay ka dhigan tahay inaad u naxariisato dadka kale iyo xayawaankaba. Dadka naxariista lihi waxay ka fikiraan qofka kale dareenkiisa iyo mid iyaga u gaar ah. Ajarkooda waxay ka sugaan Ilaahay. Ilaahayna uu u naxariistaa dadka naxariista badan. Ogow, waxaad tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.